madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa laba fariin oo waaweyn u diray guud ahaan shacabka Soomaaliyeed dhinacyada dowladda dagaalka ay kula jiraan xilli uu ku sugan yahay qaybo ka mid ah furmaha dagaalka ama qaybo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Warbixintaas ayaa halkan idinkula wadaagaya iyo macnaha ay xambaarsan tahay fariintan uu diray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Ayeshe waxaa marka hore idinka codsanaynaa in aad kusoo biirtaan barteena YouTube oo aad subscribe noo saartaan si aad u heshaan macluumaadka iyo xogaha aan halkan rabno inaan kusoo gudbino. Xilli madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu doonayo in guud ahaanba dalka laga saaro kooxda khawaarijta ah isla markaana uu ku sugan yahay qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa wuxuu u diray shacabka Soomaaliyeed beesha caalamka iyo guud ahaanba dhinacyada dowladda ay la dagaalamayso laba fariin oo aad u waaweyn, taas oo soo jiidatay indhaha guud ee beesha caalamka iyo shacabka Soomaaliyeed. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la arkay isaga oo xiran tuutaha militariga ee ciidamada maadaama uu yahay taliyaha guud ee ciidanka militariga ee dowladda, wuxuuna kulan gaar ah ula qaatay hogaamiyaha maamulka Hirshabelle iyo saraakiil ka tirsan ciidanka militariga ee dowladda iyo kuwa deegaanka ee Shabeellaha Dhexe. Madaxweynaha ayaa la sheegay in uu aaminay shacabka isla markaana uu ku dhiiraday dhexgalka shacabka iyo mas'uuliyiinta maamulka Hirshabelle, taas oo fariin cad u ah in madaxweynaha ay ka go'an tahay dhiirigelinta ciidamada iyo dagaalka lagula jiro kooxda khawaarijta ah. Madaxweynahana xilligan uu u heelan yahay in guud ahaanba dalka lagu soo dabaalo nabad iyo kala dambeyn. Tuutaha uma xiran madaxweynaha Soomaaliya in uu ku xaragoodo, ha yeeshee wuxuu u xirtay in uu ugu adeego shacabka Soomaaliyeed ay yiraahdeen qaar ka mid ah dhinacyada la dhacsan tallaabada uu qaaday madaxweynaha Soomaaliya iyo dhexgalka xilligan uu sameynayo. Madaxweynaha Soomaaliya waa 70 jir go'aansaday in uu shacabkiisa ugu shaqeeyo duruufo kala duwan isla markaana xitaa haddii uu nafsadiisa ku waynayo ayay yiraahdeen siyaasiyiinta uu kula kulmay gobolka Shabeellaha Dhexe. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waqtigiisii hore wuxuu bilaabay dagaal lagula dagaalamayo kooxdan, haddana wuxuu sidoo kale wadaa isla dagaal noocaas oo kale ah, waana tan keentay in habeen iyo maalin tuutaha uu xirto ay yiraahdeen dadkaasi. Aragtidaasi ka duwan ayay qabaan dhinacyada falanqeynaya arrimaha dagaalka iyo sida ay wax u wado dowladda federaalka Soomaaliya, waxayna yiraahdeen xubnaha mucaaradka qaarkood. Xasan Sheekh tuutaha wuxuu u xirtay inuu ku labisto iyo in uu tuso shacabka Soomaaliyeed aragti aan dhaafsiisnayn. Xarunta madaxtooyada iyo dhinacyada ku xeendaaban madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ay yiraahdeen dhinacyada mucaarada dhinaca dowladda federaalka ee Soomaaliya si rasmi ah ugama goona dowladda in ay qaado dagaal iyo guud ahaanba dalka in ay xoreyso ay yiraahdeen. Ha yeeshee waqti kooban ayaa u harsan, mana aysan ka tagin dowladda federaalka Soomaaliya qodobo waaweyn oo la taaban karo iyo guud ahaanba in ay dalka ka xoreyso cadowga ayay warkooda kusoo gabagabeeyeen. Adeega ka ahaan sidee u aragtaa labadan hadal ee ka soo horjeeda ee dhinaca mucaaradka iyo dhinaca taageersan dowladda federaalka Soomaaliya? Mase ku muuqataa in madaxweynaha Soomaaliya xilligan daacad ay ka tahay howlgalka dalka ka socda?